بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي ابوندا وديال كسو dhawaada warka telefishinka NTN oo xiliyadan oo kala aad kala socotaan NTN TV qodobada warka aad ku daawan doontaan habeenimada waxa kamid noqon doona Saciid Cabdullaahi Dani oo wajigabax kula kulmay Xasan Sheekh Maxamuud kadib midooyinkii u dambeeyay oo ku sugnaa magaalada Muqdisho faahfaahinta ka soo baxaya dagaal ba'an oo ka dhacay gobolka Hiiraan Mareykanka oo war cusub ka soo saaray dagaalka argagixisada Al-Shabaab hanti dhawraha qaranka oo aad culus u jeediyay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya wadamada wararka dibadda NTN TV ayana waxa kamid ah qarax xooggan oo ka dhacay dalka Itoobiya Israa'iil oo fariin u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan dalkaasi Turkiga Abiy Ahmed oo qaaday talaabo lagu soo afjaraya ama uu ku soo gabagabeynayo xisbiga TLF ama jamhadda TPLF warkii oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa maalinta biri ah inuu dib ugu laabto magaalada Garowe ee xarunta Puntland kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay isku fahmi waayeen in sida la sheegay uu u magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka oo xilliyadii u dambeeyay uu hanqaltaagay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maalmihii u dambeeyay Muqdisho ka waday shirar aad u ballaaran oo la yeelanayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo axsaabta isku siyaasadda yihiin Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la rumaysan yahay in Saciid Cabdullaahi Dani uu uga baaqsaday magacaabistiisa ka gadaal markii sida la sheegay Xasan Sheekh Maxamuud uu ka absaday in Saciid Dani ay siyaasad ahaan iska hor yimaadaan dadka oo daraso siyaasadda kooxda cusub ama siyaasadda xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegaya in aysan marnaba suuragal ahayn in Saciid Cabdullaahi Dani loo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya taasi oo Saciid Cabdullaahi Dani uu haystay inuu halkaasi abaal ku ergaday isla markaasna ra'iisul wasaaraha uu asagu ka talin doono faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo ka dhacay deegaanka Qarboos oo ka tirsan degmada hoostaga degmada Batabaan ee gobolka Hiiraan kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada deegaanka lagu magacaabo ama dadka deegaanka gaar ahaan kooxda lagu magacaabo Macawisleyda iyo Al-Shabaab dagaalkan oo socday muddo saacad iyo bar ah ayaa yimid kadib markii ay Al-Shabaab weerareen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Batabaan Ducaale Axmed Garaase isla markaasna isku dhaceen ciidamadii uu watay sargaalkaasi iyo ciidamada Macawisleyda ee dagaalka baan kula jira ururkaasi Al-Shabaab wararka ayaa intaas ku daraya in kooxdii weerarka soo qaaday halkaasi laga raadiyay isla markaasna ay ku sugan yihiin deegaankaasi dadkii deegaanka kooxdan abaabulan ee Macawisleyda la yiraahdo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya hameen ka hor ayay ahayd markii Macawisleydu ay weerar ba'an ku qaadeen koox ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnayd deegaanka Bacda oo hoostaga degmada Batabaan ee gobolka Hiiraan halkaasi oo ay kaga furteen sida la sheegay hub fara badan Mareykanka ayaa kordhinaya dagaalka uu kula jiro argagixisada Soomaaliya sida ay sheegtay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda iyo siyaasadda Falkland oo la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale iyadoo Soomaaliya ay wajahayso abaar ba'an iyo cunno la'aan ayaa ku-xigeenka xogayaha waxa ay kula la qaadatay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo bini'aadanimada waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame taasi oo ay ka wada hadleen horumarinta iyo deeqa ay Mareykanku ugu tala galeen in ay ku caawiyaan dalka Soomaaliya Victor Nadal ayaa yaboohday gargaar kaga dhawaaqday kulan ay la qaadatay madaxweynaha iyo ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay Mareykanka kaalmada ay Soomaaliya ugu yabooday oo lagu qiyaasay 105 milyan oo dollarka Mareykanka ah Soomaaliya waxay xilligan wajahaysaa abaaro aad u baahan kuwaasi oo sababay macluul iyo nafaqo darri ay dad ugu baabi'een gaar ahaan gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax bambaano oo ka dhacay gobolka Amxaarada ee dalkaasi Itoobiya qaraxan ayaa ka dhashay kadib markii ciidamada ammaanku ay isku dayeen inay hubka dhigis ku sameeyaan shakhsiyaad la xiray sida ay sheegeen booliska Itoobiya qaraxan ayaa ka dhacay magaalada Dasi Isniintii sida laga soo xigtay ciidamada booliska ee magaaladu waxa ay sheegeen in 4 qof oo lagu eedeynayay burcadnimo la isku dayay in la xiro balse markii dambe ay halkaasi ka dhalatay mashaqo 2 kamid ah ciidamada ammaanka iyo 3 kamid ah maxaabiista ayaa halkaasi ku dhintay qaraxaasi kaasi oo ay boolisku ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen raggii kolkii horeba la soo qabtay ololaha ay mas'uuliyiintu ugu magac dareen hawlgalka sharciga ah ayaa lagu xiray in ka badan 6,000 oo qof oo ku nool gobolka Amxaarada waxaa lagu soo waramayaa in iska horimaad u dhaxeeya ciidamada ammaanka iyo kuwa ka soo horjeeda hawlgalkaasi uu ka dhacay deegaano dhowr ah oo ka tirsan Itoobiya muwaadiniinta dalkaasi Israa'iil ee booqanaya magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ayaa loo sheegay inay ka baxaan dalka Turkiga waliba si degdeg ah waxayna arrintaasi la xiriirtay markii dawladda dalkaasi Israa'iil ay soo saartay digniino ammaan wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Yair Lapid ayaa ka digay waxa uuna sheegay in qatar degdeg ay ka jiraan Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta shaaciyay in dawladda federaalka Itoobiya ay dhistay guddi wada hadal la furo xoogagga gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi dagaalka Tigray ayaa qarxay bishii November sanadii 2020 waxa uu ku fiday gobolada dariska ah ee Canfarta iyo Amxaarada sanadkii hore laakiin dagaalka ayaa yaraaday tan iyo markii dawladda federaalka ay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadanimo oo hal dhinac ah Abiy ayaa u sheegay baarlamaanka Itoobiya in imika loo baahan yahay in la furo wada hadal la furo jamhadda TPLF Itoobiya ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa hareeyay dagaalo iyo rabshado kadib tan iyo markii dagaalku halkaasi ka qarxay kooxaha ama xoogagga TPLF-na ay bilaabeen jamhadeynta warkaad kala socoteen NTN TV waanaga intaas waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena NTN TV